aanu ku bilownay ugu yaraan 34 ruux ayaa ku geeriyooday laba qarax iyo weliba rasaas xigtay oo xalay toofiidkii ka dhacday magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. qaraxa koowaad oo baabuur loo adeegsaday ayaa ku qarxay afaafta hore ee Hotel Doorbin oo ku dhagan xarunta hay'adda nabad sugidda Soomaaliya. weerarka labaad ayaa ka dhacay bar control oo laga galo xarunta madaxtooyada Soomaaliya halkaasoo Maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab oo baabuur watay ay rasaas ku fureen ilaalada barta control ka hor inta aanu qarxin baabuurkii ay wateen. mas'uuliyiinta caafimaadka ayaa VOA uga warramay khasaaraha dhimasho ee qaraxyadani ay sababeen. haddii aan ka hadlo dhimashada 27 qof oo meyd ah ayaa istaalka la keenay oo already banaanka soo dhimatay halka laba qof oo kale ay istaalka gudihiisa ku dhinteen inta hawliga caafimaad loo geeyo jiray guud ahaan waxay isku noqonayaan 29 dhimasho ah qolka meydka inoo yaala. kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda qaraxyadaasi iyo weliba weerarkii xigay waxaanay tilmaameen inay halkaasi ku dileen 10 ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya.